habeenada kamida ayuu nabigu salaadi Aisha gurigaygu ku qornaa Aisha ummul muuminiin markaas ay nabiga hoosta ka soo gashay wuxuu Aisha caawa maydayn buu ka yiri rabbiga aan caabuday caawa ma iska kaydayn markaas aan ka yiri beetina waan ku daayay iska cibaadayso marka abu nabigu istaagay labada aayadood sidoo ugu celcelinayay ayaa bilaal salaadii fajr bilaal waadimay in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim habeen dhan lilmada ka dhaadatay ilintiisa halku sujuuda uu dhulka dhigay bay lilmada qoysi labada aayadoodna macnaheega waad garanaysaa aayadda hore waxa weeyaan ereyga nebi ciise calayhi salaam uu banka qiyaamo ku odhan doono ilaahay hortii uu isku bari yeeli doono ayaa nebi maxamed ifka dusheeda uu ku lahaa oo ereygee anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah yaa ciisa bna maryam ayaa rabbilciza ku odhan doona maalinka qiyaamaha maadaa ku yidhi qowmkaaga reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku yidhi markaasuu nebi ciise isbari yeelayaa markuu isbari yeelo buu odhanayaa haddaad cadaabaysana dee waa addoommahaagii haddaad u dembi dhaafaysana dee amarka adiga iska leh ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazala jibriil calayhi salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil u tag muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u tag muxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummaddaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayno adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno iyaka wax adiga dhib ku geliya ka yeeli maynaba iyaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu limadii intuu iska biyey ayuu salaadii subax nebigu saxaabada tujiyey